Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادين سلام صاحبي المال كستو adduunyada ka joogtaan. Waxaan idin rajaynayaa caafimaad dhammaystiran insha Allah. Hurdadu waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka muhiimka uga ah aadamaha sida khubarada caafimaadku ay sheegeen. Waxaana mar walba maqalnaa ama aragnaa talooyinka dhakhaatiirta ee la xiriira in qofku uu helo hurdo wanaagsan si uu uga badbaado cudurro badan oo ka dhasha hurdo la'aanta. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale sheegaya in hurdadu ay tahay cuntada jirka bani'aadamka, waana hab lagu dhiso laguna dejiyo caafimaadka maskaxda qofka. Qofka oo aan helin hurdo ku filan waxaa ku dhaca isbeddel dhanka nolosha guud ah iyo tan caafimaadka maskaxdiisa sida ay khubaradu qabaan. Waaxda caafimaadka ee dalka Ingiriiska ee loo soo gaabiyo NHS National Health Services ayaa mar ay ka warbixinaysa muhiimadda hurdada, faa'iidooyinkeeda iyo waxyeelooyinka ka dhalan kara hurdo la'aanta. Waxa ay sheegtay in saddexdii qofba mid ka mid ah uu la ildaran yahay hurdo la'aan, welwel iyo shaqo dheeraad ah. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in hurdadu ay muhiim u tahay caafimaadka aadamaha sababtoo ah waxay bogsiisaa oo ay hagaajisaa wadnaha iyo xididada dhiigga. Hurdo la'aanta ayaana lala xiriiriyaa in ay tahay khatarta caafimaad ee kordhaysa sababtana cudurrada wadnaha, kelyaha, dhiigkarka iyo macaanka ama sonkorta. Sababaha aanay dad badan hurdo ku filan u helinna waxay u badan tahay niyad jabka iyo welwelka qofka ka soo wajaha dhibaatooyinka nolosha iyo sidoo kale feejignaan la'aanta khataraha ku imaan kara qofka haddii uusan si wanaagsan u hurdin. Sidaa darteed ayaa helidda hurdo ku filan ay muhiim u tahay inuu qofku joogteeyo si uu u helo hab nololeed caafimaad leh uuna sare ugu qaado tayada noloshiisa. Mowduuceena maanta 4 qodob ayaan ku soo qaadan doonaa hadduu Alle raalli ka noqdo. Qodobka koowaad, meeqa saac ayaan u baahannahay inaan seexanno? Qodobka labaad, faa'iidooyinka hurdada. Qodobka saddexaad, maxaa kugu dhacaya haddii aadan helin hurdo kugu filan? Iyo qodobka ugu dambeeya oo ah telefoonka gacanta xilliga hurdada. Haddii aan ka hormarno qodobkeena koowaad, meeqa saac ayaan u baahannahay inaan seexanno? Xaddiga hurdada ee qofka uu u baahan yahay waxay ku xiran tahay qofka da'diisa, sababtoo ah dadka qaar ayaa u baahan hurdo badan halka kuwa kalena ay u baahan yihiin saacado yar inay hurdaan. Arrinta muhiimka ah ayaana ah in uu qofku ogaado inta saacadood ee uu u baahan yahay inuu hurdo, isla markaana uu isku dayo qofka inuu helo hurdo ku filan caafimaad ahaan. Carruurta aadka u yaryar waxa ay seexan karaan qiyaastii 18 ilaa 20 saacadood 24 saacadoodba. Carruurta da'doodu ka weyn tahay 5 sano waxa ay seexan karaan sidoo kale 16 ilaa 18 saacadood. Dadka da'doodu ka weyn tahay 18 sano waxay u baahan yihiin ugu yaraan 7 ilaa 8 saacadood si ay u helaan hurdo ku filan. Kuwa da'doodu ka weyn tahay 60 sano iyaguna waxay u baahan yihiin ugu yaraan 4 ilaa 6 saacadood oo hurdo ah. Da' kasta oo dadkaas ka mid ah haddii ay helaan hurdo ku filan waxay u badan tahay inay caafimaad ahaan wanaagsanaan doonaan. Haddii qofku soo tooso isagoo daalan isla markaana muddo yar kadib uu hurdo dareemo, tani waxay calaamad u tahay inuusan qofkaasi helin hurdo ku filan. Qodobkeena labaad, faa'iidooyinka hurdada. Faa'iidooyinka hurdada aad ayay u badan yihiin, mana aha mid aan halkan ku wada xusi karno. Haddii aan wax yar ka sheegno faa'iidooyinka hurdada waxaa ka mid ah hurdadu waxay hagaajisaa difaaca jirka, maskaxdana way kobcisaa. Sidoo kale hurdadu waxay daawo u tahay xanuunka loo yaqaano sonkorowga ama macaanka iyo wadna xanuunka. Ugu dambeyn, hurdadu waxay qofka siisaa deganaansho maskaxeed. Maxaa yeelay si kasta oo qofka uga daalo maskaxda ama jirka maalinkii oo dhan, haddii uu helo habeenkii hurdo ku filan, waxa ay hurdadaasi siinaysaa deganaansho maskaxeed iyo mid jireed intaba. Qodobkeena xiga, maxaa kugu dhacaya haddii aadan helin hurdo kugu filan? Waxaa jira calaamado qofka lagu arko haddii uusan helin hurdo ku filan ama uusan seexan. Dhakhaatiirta ayaa sheegaya in hurdo la'aantu ay caafimaadka ku leedahay saameyn ba'an, taasoo ay tahay inuu qofku aad uga taxadaro. Hurdo la'aantu waxay qofka ku ridaa xaalad welwel ba'an ah. Daraasadaha qaar ayaa sheegaya in hurdo la'aantu ay keento xanuunka Soomaalidu u taqaano laabjeex ama laabdilaac. Dadka qaba xanuunka macaanka ama sonkorta haddii aysan helin hurdo ku filan, macaanka ayaa ku kici kara. Carro ama xanaaq ayaa ka dhasha hurdo la'aanta. Hurdo la'aantu waxay keentaa jahwareer qofka ku dhaca. Hurdo la'aantu waxay keentaa sidoo kale hilmaan ama xusuusta qofka oo yaraata. Hurdo la'aantu waxaa ka dhasha aragga oo daciifa. Ugu dambeyn, dadka darawallada ah ee aanan helin hurdo ku filan waxay hurdo la'aantu ku sababtaa shil joogto ah. Qodobkeena afraad ahna qodobka ugu dambeeya, telefoonka gacanta xilliga hurdada. Khubarada caafimaadku waxa ay uga digeen dadweynaha gaar ahaan dhalinyarada in ay isticmaalaan telefoonnada gacanta xilliga hurdada. Dhakhaatiirta ayaa sheegaya in isticmaalka telefoonka gacanta uu qayb ka yahay waxyaabaha keena hurdo la'aanta. Qofka waa inuu kala saaraa wakhtiga hurdada iyo isticmaalka telefoonkiisa. Telefoonka gacanta oo la isticmaalo xilliga hurdada ayaa keeni kara walwal iyo jiif la'aan iyo aragga indhaha oo naxuusa ama yaraada. Dhakhaatiirta ayaa dadka kula talinaya in maadaama hurdadu u wanaagsan tahay caafimaadka, ay tahay in arrintaasi mudnaanta la siiyo
oo uu qofku hore u seexdo uuna ku nagaado ilaa laga gaarayo waqtiga ku habboon inuu ka kaco. ugu dambayn, aqoon-yahanada ayaa ka digaya kiniiniyada hurdada ee xad-dhaafka loo isticmaalo, kuwaas oo faa'iidooyinkoodu yar yihiin, saameyntooda caafimaadna ay daran tahay. daawadayaal, muuqaalkeenna maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. haddii aad ka heshay mowduuceenna maanta, fadlan like saar, lana wadaag asxaabtaada kale. waa inoo muuqaalkiisa xiga insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.